halkani waa BBC London oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ee 19 koob iyo 30 iyo 49 mitirban balki wanaagsan dhageystayaal meel walba aad joogtaan saacadu waa 9 fiidnimo maanta waa Jimce bishura waxa weeyaan bisha May 3 sanadka 2002 barnaamijkayaga caawa waxa uu u badnaan doonaa warar ku saabsan geerida madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal dhageystayaal sidii warkaba aydinku maqlaseen waxa maanta ku geeriyooday magaalada Pretoria ee dalka koonfurta Afrika madaxweynihii Soomaaliland Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo halkaasi muddo 7 daaweyn u joogay barnaamij gaar ah oo laanta af Soomaaliga BBC-da ay ugu tala gashay ayaa halkan idinku hayna waxaan inoo daadiin doonaa Cabdiraxmaan Maxamed Aadan Cabdiraxmaan Koronto ku wareejiyo الله نحرسته محمد حاج إبراهيم عقال مدحوينه جمهورية دلما بحثي سوماليلاند ساكي طبانكي صباحنمو وقتها بريتوريا كونفور أفريكا أيو كوغيريو دا إسبيتال ميلتري أو كويا لمقالداسي waxuu halkaasi u tagay toddobaadkii hore howlo caafimaad kadib markii uu xanuunsanayay muddo 3 bilood ah waxaana socdaalka uu ku tagay koonfur Afrika ku helinayay xaaskiisa iyo wasiirro sare oo ka tirsanaa dawladda Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii 1993 iyadoo uu halka ka hirgeliyay xasilooni aan jirin Soomaaliya inteeda kale inkastoo uu ku guuleysan waayay inuu helo aqoonsi caalami ah haddaba sidee geerida Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal looga dareemay magaalada Hargeysa oo ah caasimadda Soomaaliland Yusuf Garaad ayaa wax ka weydiiyay wariyaha BBC-da Hargeysa Shaadiye Maxamed Roble dadka maanta Jimcaha badanaa Jimcaha dadku hawsha way ka nastaan hore looma ogaanin dadkii ugu horeeyay ee aan dareemay inay maqlaan waxay ahayd 3 iyo xoogaa marka dadku runtii in badan ilaa hadda maqashiisneen qof walba wuxuu ku weydiinayaa ma runba ma jirtaa waayo dadka marka hore xanuunkiisa iyagoo maqashiisnaa haddana waraysigii BBC-da ay yeelatay habeenkii dhow codkiisa ay maqleen waxay siisay dareen ah inuu caafimaadku uu fiican yahay soo laaban doono marka dadku in badan ayay isweydiinayaan dadna hadda waxaan ku dhihi karaa Yusuf dad badan baan hadda maqalkaas ka hor hadda BBC-da aan ogaanin oo aad baa la isku weydiinayay maadaama ay Jimcaha had iyo jeerna 3 iyo agagaarkeeda waa xilliga jaadka loo fadhiyo oo beledka markaad dhex socoto dad badan iyo waxaas ma arkaysid laakiin أبار أفرتي وحوجا أي فين مرحتوية عبد يدرس العالم وصحافة وكسح حيا يا صبحي أو شيء يا إن مرحوينا كحيان كداهر يا لك هين وعدي إن مرحوينا إجالوه جريودي قليل لو سحي استالكي من التريه بريتوريا وكتري marka dad badan intii kadib ogaaday intii waana la dareensanyahay ilaa burco la xiriiray waliye ku sugan waxa uu sheegay in markaas uu la ogaaday waxoogaa ka hor waan gartay nashadi markii la ogaaday dadka jawigoodu sidee yahay dadka dareenkeedu maxay muujinayaan wallahi dadka dareenkoodu horta waa kala duwan yahay laakiin waxaad ka arkaysaa xaafadaha qaar dad hortaagan haweenka oo kale waxaad moodaa in ay xoogaa walwalsan yihiin oo ay sawiryo sida wixii dhici doonaan ay ka walwalsan yihiin oo guryaha ay hortaagan yihiin madaxtooyada aan soo hormaray haween baa hortaagnaa meelaha la isugu yimaada Hargeysa cajab oo kale oo aan tagay rag tiro badan oo waayeel badan isku dhex jiraan la kulmay waxay qaarkood waxay sheegeen inay habeeraatay wax u weera ay qabaan ay jirin dastuur uu wadan ku leeyahay oo ay markaas wixii dastuurku وسمعي مركز لوجو دقائق دون ورور بدأ نقبل لكن ذلك والورثة حوجا حافظها يا هوانك يا أهل لوجا دريني هذا والورثين واحد روى تراث يوسف شير لافت يوم الحكوية وصدق الجولة كوكو إنسان شو قدونا بخاصة أو أدي دريسويش يا جماعة الله المرة عم سرقنا الله هذا الشركة صوح كسوة بحدونا مركز لوجو دقائق دونه haatan wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray magaalada Hargeysa waa kan Yusuf Garaad oo inoo soo kooba waxa weeye shirka wariyuhu ay sheegaysay Shaadiya ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo laga soo saaray go'aamo dhowr ah oo ugu horeeyo in Daahir Rayaale Kaahin loo dhaariyo madaxweynenimo isla markiiba halka ayaa lagu dhaariyay oo waxa madaxweynaha Soomaaliland loo dhaariyay Daahir Rayaale Kaahin waxa kale oo go'aan lagu soo saaray in guddi 10 ruux ka kooban loo saaro aaska madaxweynaha geeriyooday waxaana guddigaasi madax u ah wasiirka arrimaha gudaha Cabdullaahi Cadde iyadoo isla markaana la sheegay in lagu aasi doono magaalada Berbera sidii uu marxuumkuba markii hore codsaday oo ahayd in uu ka dardaarmay in lagu garab aaso qabriga aabihi arrimaha kale ee wararkan soo gaaray hadda waxa kamid ah in dawladda Koonfur Afrika ay hadal ka soo saartay geerida Maxamed Ibraahim Cigaal iyadoo sheegtay in ay ka naxday geeridaas isla markaana ay uga tacsiyadeynayso
mas-uuliyiinta iyo shacabka somalilan. waxaa kale oo wararku ay sheegayaan in ay nagu soo dhacayaan faakisyo fara badan oo ay soo dirayaan dadweyne Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin intaba oo ay ugu tacsideynayaan eheladii iyo qaraabadii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal.